Sam wuxuu ahaa aqoon dhalinyaro oo la noolaa awowgiisa kadib geeridii qoyskiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, awowgiisii ayaa fadhiistay oo ku yidhi, "Wiilkaygiiyow, tan iyo markii aabbahaa iyo hooyadaa ay dhinteen waad ila nooleed. I rumayso wiilkaygiiyow, waxaad noqotay qoyskaygii oo dhan. Waan ogahay in maalmahayga adduunkan ay yar yihiin, waxaan rajaynayaa inaad kaligaa sii wadan doontid noloshaada. Sidan samee, isku day inaad dhisato qoys, Sam, waayo waxa kugu hareeraysan kuwa aad jeceshahay iyo kuwa ku jecel. Waad qiimo badan tahay." Sam wuu dhageystay hadalladii. Muddo kadib wuu waayay awowgiisa. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu si joogto ah u booqdo qabrigiisii. Dhanka kale, adduun kale oo ka mid ah boqortooyada, dhibaatooyin daran ayaa halis geliyay jiritaankoodii. Sidaas darteed, boqortooyada waxay go'aansadeen inay u yeeraan geesi si uu u badbaadiyo. Saaxiriinta boqortooyada ayaa bilaabay aadidda yeerista, waxaana dhulkoodii qabsaday makhluuqaad aad u tiro badan. Dhanka kale, Sam si degan ayuu wax uga baranayay maktabadda markii si lama filaan ah u furay bog internet oo gaar ah. Isla markiiba wuu galay adduun kale. Wuxuu is arkay isagoo kor ka soo dhacaya oo qaylinaya, "Waa maxay waalidan? Maxaa igu dhacay?" Shaabadii ayaa si xoog leh u soo jiidatay ilaa uu dhulka ku dhaco. Askartii isla markiiba waxay u kaxeeyeen hoolka boqortooyada. Halkaas wuxuu ku arkay muuqaal cajiib ah oo ka baxsan mala-awaalka. Si lama filaan ah, boqorka ayaa fadhiga ka kacay oo ku dhawaaqay, "Waad ku mahadsantahay inaad naga jawaabtay baaqeennii gargaarka, iyo inaad noo timid si aad noo badbaadiso." Sam ayaa si caro leh u qayliyay, "Ma waalan tahay? Wicitaankee? Gargaarkee? Sideen xitaa halkan ugu soo gabagaboobay?" Boqorkii wuu la yaabay hadalladiisii, laakiin wuxuu isku dayay inuu dejiyo, "Fadlan samir, wax walba waan sharxi doonaa." Boqorkii ayaa sheekadiisii bilaabay, "Qaaradda dhulka jinsiyado kala duwan ayaa ku nool, laakiin masiibo weyn ayaa dhacday. Albaab ayaa bilaabay inay ka soo muuqdaan wax aan jirin, iyagoo sii daayay bahalo aan tiro lahayn. Makhluuqaadkan ayaa ku faafay qaaradda oo dhan, iyagoo dhulkii burburiyay. Dhowr boqortooyo ayaa isku raacay inay iska caabiyaan, laakiin way ka guuldareysteen inay ku adkeystaan awooddoodii. Qalalaase awgiis, boqortooyinka waxay dhammaayeen dhammaan kheyraadkoodii. Dabadeed, bahalladii waxay qabsadeen 3 meelood meel qaaradda, waxayna dhisteen boqortooyo ballaaran oo ay ugu yeeraan Boqortooyada Jinniga. Tan iyo markaas, dagaallo aan dhammaad lahayn ayaa ku dhex socda boqortooyada jinniga iyo dhulka kale. Burburka meel walba ayuu ku faafay, waayo jinniyada waxay raadinayaan halaag aan sabab lahayn. Sam ayaa weydiiyay, "Maxaase dhab ahaan iga filanaysa? Masiibadan oo dhan ma waxaad u baahan tahay inaan xalliyo dhibaatooyinkaaga?" Boqorkii ayaa ku jawaabay, "Dhegeyso, Sam, runta ayaan kuu sheegi doonaa. Waxaa jira boqortooyo la yiraahdo Gaan oo mas'uul ka ah dagaalka ka dhanka ah dhulka jinniyada. Waa boqortooyo awood badan ee qaadaysa culayska ugu badan ee dagaalka. Waxay taageero ka helaan dalalka kale aan si toos ah u dagaalamin, laakiin gargaarkan ayaa dhibaato ku keenay dhaqaalaha qaaradda oo dhan." Sam ayaa ku jeesjeesay, "Haddaba maxaad u bixin weyday dhaqaale? Maxaa arrintan iga galay?" Ku-xigeenka ayaa ku jawaabay, "Nasiib darro, dhaqaalaheennii ayaa gebi ahaanba burburay. Boqortooyadana sidoo kale. Da'yu daran, cunto yaraan ba'an, ma dagaalami karno, mana bixin karno ciidan. Sidaas darteed, waxaana looga haray hal ikhtiyaar oo keliya oo lagu duubay qaaradeennii hore: halyey u yeerista." Sam oo yaaban, "Maxaase igu dhici doona haddii aan halkaas tago?" Boqorkii ayaa ku jawaabay, "Taasi waxay ku jirtaa gacanta khatarta. Wiilkaygiiyow, naxariista Ilaahay ha ku ilaaliso." Sam wuxuu ogaaday inuu khatar weyn ku jiro. Wuxuu ka fikiray inuu baxsado, laakiin wuxuu ka baqay in la qabto oo lagu qasbo inuu galo gacan. Si lama filaan ah ayuu fikrad ugu soo dhacday. Wuxuu weydiiyay, "Haddii aad i dirto, ma joojin doonaan inay lacag kaa dalbadaan?" Ku-xigeenka ayaa yidhi, "Dabcan, waxay sii wadi doonaan inay weydiistaan gargaar ilaa iyo inta dagaalku socdo." Sam ayaa weydiiyay, "Goormay idinku dambeysay inay geesi u yeertaan?" Ku-xigeenka ayaa ku jawaabay, "Markii ugu dambeysay aan u yeerno geesi waxay ahayd 500 oo sano ka hor, laakiin hadda ma hayno doorasho kale. Cabbir daqiiqadan, nacasyow. Sidee baad fursad noocaas ah si taxaddar la'aan ah ku tuuri kartaa? Kuma aha in geesiyaasha la dilo, waa in la dhiso xoog dhab ah. Waa inaan soo celinaa dhaqaalaha boqortooyada, dib u soo ceshanaa kheyraadkeennii, oo aan samaysannaa
ciidan awood leh oo awood u leh inay difaacaan dhulkeena. Geesiyaasha aniga oo kale ah ayaa aas-aas uga dhigi karta arrintan." Jawaabta aniga ayay ila tahay run, isagoo ka baqaya inay u diraan Merhun si uu ula dagaallamo jinniyada. Markii dambe Sam wuu fadhiistay isagoo gacantiisa ku haya dhabankiisa, isagoo leh Rabbiyow i badbaadi. Si lama filaan ah wuxuu arkay boqorkii, boqoraddii iyo kuwoyinkii oo la fadhiistay. Sam wuu codsaday inay si faahfaahsan ugu sheegaan wax kasta oo ku saabsan boqortooyada. Runtii waxay qabteen shir socday 3 maalmood oo dhan. Intii lagu jiray waqtigaas, Sam wuxuu bartay faahfaahin kasta oo ku saabsan boqortooyada, wuxuuna bilaabay inuu qorsheeyo qorshayaal